aniga macnaa safarkaas oo dhan ima cado waxa ay cad kaliya inta qof wax ka dhex guuxayana oo dareen wado so marka waxa dhacday in tigidkii hore aan ka jaranay marka aan qadqadeynay marka habeenkii waa seexanay meesha seexanay Jigjigo sax maalinkii 8 saac maray tahay oo macnaa waqtiga macnaa oo noogu qornay tigidka 8 saac doornimo inaan ka bixina noogu qornay 8 saac doornimo is diyaarnay baski meesha baskaan tagnay baski baan raacnay so baski wuxuu naga qaaday Jigjigo haddana waxa waayto wardheer wardheer waa marka magaalo kale wardheer macnaha Jigjigo iyo Ethiopia oo dhan waa isku xiran tahay ilaa wardheer waa qofku wardheer ka baxo kale Jigjigo taga qofka Jigjigo soo baxana wardheer marka timaadid galaadi iyo dhankaas waxa aadaysa marka mudug okay ma garatay sax so waxaan tagnay adi muddo waxaan sii soconay habeen dhan waxaan jidka ku sii jirnay ilaa waxa baxnay maalin 8 saac aan baxnay sax habeenkii oo dhan waa soconay mar ay tahay 12 subaxnimo waxaan ku aadnay wardheer aan ku aadnay markaas haddana isla markiiba adii qof oo ehla meesha joogay markaas lagu soo xiray gurigiisa cabaar joognay marka Jigjigo marka ka soo tagtay UN waa isdhaafteen macna waa isdhaafnaha okay hadda ayaga waxay ahayd sabootintooda waxay ku ekeed ilaa Jigjigo inay keenaan bis okay wixii kale adaa isdhaafinay ma garatay sax so waxa dhacday marka in aan 12 subaxnimo aan soo galnay wardheer 12 subaxnimo marka wardheer soo galnay waxa dhacday in guri qof ehla aan ku soo degnay xoogaan ku nagaanay kadibna aan tagaasi aan sii balansanay oo macnaha saan u aadno gobolkeeni galgadid okay tagaasidii aan balansanay tagaasidii aan raacnay so taxigi wuxuu u soconaa marka muddo adiga muddo waxaan dhihi karaa subaxdii waxaan ka baxnaa adiga 4 saac oo subaxnimo sax meesha xoogaa ku dahnay quraacna wixii ka cunnay adii xilli mugtay aroornimo soo galnay marka hore kama bixi kartid sax ina xoogaa joogtid waa ilaa xal dhan safar ku soo jirtaa xoogaa ma nasiinaan qaadanay muddo markay tahay adiga saacadu 4 saac aan meeshaas ka baxnay saa u soo soconay marka gobolka aan u socday aniga oo muhiimadeeda koowaad gaarka ii lahaa waxaan ku soo aadnay 6 saac oo duhurnimo 4 saac ilaa 6 saac loo saac loo socnaa waa isku dhow yihiin marka mudug ma maraysa oo galaatiya sheegis ma maraysa galaadi macnaha waa waxay ka tirsan tahay idan Ethiopia galaadiya maraysa meel la dhaho cilaan le dhankaas macnaha laga soo galaa cawdaq meel la dhaho cawdaq waa maqsha umleeya dhankaas laga soo galaa sax marka dhankaas ka soo galnay 6 saac waxa jooga cawdaq gobolka macnaha aniga aan ku riyanaa macnaha qofkii gabadha aan isjeclayn ay joogtay imid gobolku waa weynaa marka weyn yahay gobol weyn adiga marka magaalo ku calaamadaysan magaalada socotaa anigu gabadhaas muhiimadeeda gabadhaas waa intee joogtaa meesha imid meesha joogtaa isla meesha so waxa dhacday meesha gobol degmo ahaan waa hadda degmo waa oo ka tirsan galmudug okay yani galgaduud waa gobol moogtahay so magaalada u socoto waxa waaye abduwaq ayada meesha joogta marka ayada joogta adigana taagidka meesha waa meeshas waa laakiin kaliya ma socotida kula socdo familka ila socdo familka socdo ayagana familka isla meesha le macnaha deegaan ahaan xagaba ka soo jeednaa Soomaaliya okay muhiimadda wadadaas dheer waxaan u soo mareynay systemka macnaha oo marka hore aan qoranay ina xag martid okay toos macnaha destination meesha ugu dambeysay socotay waa Abudwaaq waa meesha gabadhi joogto okay waa ku fahmay so meeshii aan nimaadnay aniga marka wax kale iima caddo waxay cad macnaha gabadhaas la kulankeeda aad u xiiseynaya waayo qof aad jeceshahay maanta safarkaas dheer darteed u soo gashay waxa xiiseynaysaa la kulankeeda sax so aniga waxa ugu weyn intaas marka intaas la socotiin muddo adiga waxa isla soconnaa ugu yaraan 10 bilooda 10 bilood isla soconnaa intaas soo socotiin waa la socodsiinisay oo asla sheegay safarkayga halkaas aan maraya waa soo dhawahay xaaladeeda macnaha step by step baa wala socodsiinay okay so markaan magaalada soo galay waan daalnaa marka xoogaa telefoonka dab gashtay waa la hadlay waa u sheegay waxaan iri waa nabad imaaday waxay dhahday waa alxamdulillaah dee waxa xiga iri waa in aniga aragno labadayna indhoodna isqabtaan maadaama xiisa aad u weyn isku qabaan markii hore dabcan waxa ka arki jirtaa laga yaabaa macnaha qadka kaliya sawir iyo call video in laga sheekaysto ma ahan si toos ah macnaha dee qofkii kuuma dhawo oo masaafo dheer ay idin dhaxayso marka familka markaas waxa kula socdaa tili hooyada waa kula socdaa hooyada familka dhan adigu waa dhan oo la socdaa
بيقولي أيوة بس واحد عليك وقرصي أنا مو أوكي فاميلي مو معناها أنا فاميلك كلية أيها سفر كي من معناها ماشي عن كعب بحنا بس أيها أوجيهين لكن تنكلي تقلق وقرصون أنا قاس إيتها أوكي لما سعدان مركا وأشيء وحائر دي وحكلوا لمن ملها ما دام أنا وأنا نبض إمادي إن عنده ينسقطان ما دام باهي بدن إسقو قبان إن إسأركان تاسع رجينا إلي وايه تري كدي بحار عادي إن أنا إسكان نستي ماشي متقاند وأديو قبل كان كل شوي لكن وقتي أن كتجي ووقت در لو كوني سيدي يعني قبل كاس كتجي صح dadkii ehel ahayn dadna badana way soo tageen oo Nairobi soo aadeen dadkan baali aadeen dadku waa la kala tagay sax hadii waxa way marka waji cusub iyo gobolkaagii aad maaragtay dadkii aad hore u taqaanay aad ku aqoonin sax laakiin ehelkaaga meesha ay ku badan yihiin soo waxa dhacday in aan kulankeeni si aan isku arki lahayn labadeen aan ka shaqeeyo sax aan u sheego kadib iga aqbashay marka waxa dhacday kulankeeni u horeeyay in aan is aragno oo meel adiga cafeteria waan ku balanay meesha isku nimid isla maalintiiba mise isla adigu waxa ka soo wareegtay laba bariya ka soo wareegtay okay isla markiiba macnaha suurtagal ma aha aniga safar aan soo galay waa dalna nasiina badan aan qaadanay kisto arabta aad rafaad ka muuqdo in li arko ma rabo waqti booditaankaas xataa ma aha waayo qofkan qof aad dareen isku haysaan waa kisto adoo isku wajigaaga comfortable ina is aragnaha هذا كلا first impression كبيب waa waraysi naas qabanayaan oo kale qofka suu aha waa xusnaani wiligaag aragti fiican inuu ka qaato way Soomaa soo ani taas ana satay 2 days markaan kadib maalintii saddexaad waa is aragna marka waxa dhacday markaas aragnay runtii ani aad aan u farxay oo aad aan u fiiriyay si qof maaragtay ugu cusub oo kale oo hadda ina arko kale عمل ila noqotay sax laakiin de waa fahmi kartaa waa dareenka qofku macnaha markaa jeceshaho kale oo kugu cusub yahay markaas aad macnaha imaanto dhan inaa eegtidoo kale eegmadiisa macnaha waxay ku noqonaysaa wax weyn ku noqonaysaa xiiseynaysa xiiso cusub haysa soo aad baan ugu dhayigagay runtii aydan waxay dhahday hadda maan isku keen horeysa markaasaan waxaa idhi أول وحاجة تليفون كلية يوم موقع أهاني إن أسكار أجنم أهاني ما دام هذا ما أنت تتوس أسكار كينه صح فرحد وين إيتهاي هذا معناها أدنيناي مدبدنا أصلا سمري سو إنا سان كوفي هاي اللي يابين ما قلت صح هذا مرك إنا وذا فريسنا ماشي عن مارك كافيه يوحكوا عمله